Asalaamu calaykum dhalinyaro soo dhawaada waa Maxamuud casharkan waxaynu ku qaadanaynaa 10kan erey meesha noo saaran ereyga koowaad nosy waxaa la yiraahdaa qof jacayl inuu dhex galo arrimaha dadka kale yes nosy for example don't be nosy mind your own business yani nosy ahaanin dantaada qabso yes nosy waxaa la yiraahdaa marka qofka arrimaha dadka kale waxilxooda noloshooda shaqadooda guurkooda in wax ku ogaada jecel ayaa la yiraahdaa nosy ereyga labaad novelty waxaa la yiraahdaa something new wax cusub yes for example the gadget was a novelty wuxuu ahaa wax cusub wax markay aad u cusub yihiin ayaa la yiraahdaa novelty ama innovation ama newness something that is new novelty waxaa kaloo la yiraahdaa yani waxaanan caadi ahayn something that is unusual yes waxaanan caadi ahayn for example the novelty of the trip the unusual part of the trip how are you wore off after the week yani week kadib waa iska dhamaatay yes ereyga saddexaad marka novelty waxaa la yiraahdaa something new or something unusual wax cusub ama waxaanan caadi ahayn ereyga saddexaad obscene waxaa la yiraahdaa wax yani xun yes something that is wrong morally wax markay xun yihiin inta badan yani mostly sexual yes walxaa galmadii waxyaalahaas la xiriira ayaa la yiraahdaa obscene for example he was fined waxaa loo ganaaxay for making obscene acts in public yani talaabooyin ama ficilo yani laga wanaagsan yahay oo aad u xun ayuu wuxuu ku sameynayay meel dadka maxsharka dhexdooda yes ereyga afraad obsessive waxaa la yiraahdaa wax markuu qofka niyadda aad ugu hayo aad u rabo aad u xiiseenay yani maanta kullina niyadiis ku soo noqonayaan ayaa la yiraahdaa obsessive yes for example she is obsessive about cleaning her room every day obsessive waxaa kaloo la yiraahdaa ka badbadin qofka hadduu qof jeclaanayo inuu aad uga badbadiyo hadduu wax ka fikirayo inuu ka badbadiyo haddii nadaafada inuu ka badbadiyo dee 9 wax inuu tirtirayo yes obsessive ereyga shanaad odds waxaa la yiraahdaa yani chance that this thing will happen yani waxaan inay dhacayaan ay u badan tahay the odds of rain are high today maanta waxay u badan tahay roob inay dhacayaan yani waxay u badan tahay aad iyo aad okay ereyga lixaad oddly waxaa la yiraahdaa yani wax sida laga rabo ama si aan lagu aqoonin ayaa la yiraahdaa yani unusual ama strange si aan lagu aqaanin miyaha si kale for example oddly no one spoke at the meeting yani horaan waxay yaqaaneen qof walba inuu shirka ka hadlo oddly marka yani waxaan la filanaynin something strange waxaanan horay u aqoonin yes ereyga toddobaad odua waxaa la yiraahdaa ur inta badan waxaa loo qaataa yani shirka xun scent waa caraf odua waa shir ama ur yes for example there is an odor of smoke in the room yani qiiq baa kasoo shiirayo qolka marka odor waxaa la yiraahdaa shiirin ama urin smell wax soo uray de waxa soo urayna waxay ahaan karaan wax fiican waxay ahaan karaan wax xun yes odor marka inta badan waa wax xun yes scentna ama fragrance waa wax carfa yes aad iyo aad ereyga sideedaad offset waxaa la yiraahdaa yani wax in la balance gareeyo balancing something yes taasaa la yiraahdaa offset yes his gains faa'iidooyinkiisa offset his losses this year yani faa'iidooyinkiisa waxay balance gareeyeen yani khasaarihiisa pioneer waxaa la yiraahdaa qofka markuu yahay qofka ugu horeeya waxaan sameeyay yes hormuud yani qofka ugu horeeyay ee waxaan sameeyay yes pioneer yani he's the first person who did this thing waa qofka ugu horeeyay waxaan sameeyay ereyga tobanaad ee ugu dambeeyo pitch waxaa la yiraahdaa inaad soo bandhigtid fikrad yes a business pitch ama he will pitch his business idea wuxuu soo bandhigi doonaa fikradiisa ganacsi pitch waxaa kaloo la yiraahdaa codka aadka u dheer yes dhawaqa codka zaidka ayaa la yiraahdaa pitch casharka intaas ayuu ka yahay thank you for listening god bless you and have a beautiful day bye bye